Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Somali Youth Scholars. Haddii ay tahay dabcan markii kuwaada soo booqatay YouTube-ka, soo dhaweeyaan kuleynahay walaal. YouTube-kana waa YouTube aan ugu talagalnay dhalinta Soomaaliyeed sidaadoo kale adiga camal ah inaan ku caawino oo nagu soo gudbino waxyaabaha maanta fursadaha maanta dunida dacaladeeda ka jira. Way kow ka tahay green card lottery-ga, deeqada waxbarashada iyo waxyaabaha kale hoos yimaada. Insha Allah maanta mowduuc aad muhiim ah isla eegi doonaa ku saabsan green card lottery-ga, qaas ahaan sida KCC loogu diro email hadduu wax ka khaldamo. Foomka ay kasoo qaad DS 260 ayaa wax iska qaladay oo waxaa rabtaa inaad codsi u dirsatid oo foomka dib lagu soo furo oo dib foomkii aad u gashid oo aad u saxdid qaladaadka aad samaysay. Mise kasoo qaad address aad ku qortay, laga yaabo interview ayaa waxaa ka codsatay inaad ku gelaysid waxaa koodi foom ku qortay inaad ku gelaysid Kenya, laakiin waxaa rabtaa inaad bedelatid, then codsi ayaa u dirsan doontaa KCC foomka dib kugu soo furdo addresska ayaa meesha ka bedeli doontaa. Marka macnaha xogta guud aan idin sheego waxaa waaye sidee KCC haddaad aqaan waxaa waaye Kentucky Consular Center, waa meesha lagu xukumo green card lottery-ga. waxaa qoladaas marka sidee email ugu diraysaa oo waxaad u baahan tahay ugu heli doontaa. Kasoo qaad tusaalahan aad isii ciwaan walbo waxaa waaye adiga waxa u baahan tahay ciwaan ugu dhig. Mesela waxaa rabaa inaad foomki DS 260 in la ifro. Waxaan leeyahay subject aan to orto waxaa waaye emailka ku diri doontid waxaa waaye capital ka wadri KCC DV at state capital kali halaan wixii ka bilowdo state.gov emailkaas ayaa ku diri doontaa. waxaa u baahan tahay dee wax bedel noqoto, haddii ay waxyaabo codsi u baahan tahay inay ku qabtaan, haddii wax u baahnayd uu ka soo daaha camal. marka wax walba u baahan tahay emailkana ugu diraysaa. haddii documenti dirow ay noqoto kcc.documents email lahay jira ka hada muhiimada guud emailkana noqosay emailkana isticmaalaysaa. then subject maxaa waaye subject-ga waxaa ugu dhigaysaa ciwaanka guud waxaana xogta waxaa rabtid waxaa leedahay waxaa rabtaa in lagu furo foomkii DS 260. marka waxaa leedahay unlock si fiican iskaga sax qaladada qorin unlock request subject-ga halaan bisa ka dhigaysaa unlock request. then waxaa qoraysaa meesha body emailka magacaagi oo dhammaystiran, name deh, kasoo qaad magacayga waxaa waaye Abdullahi Ali Yusuf. kasoo qaad magacayga saddexdeeda magac oo complete sida baasaboorka igu qoran ku qoraa, iyo case number oo ah 2021 AF 000 1600. tusaalahan waxaan roona u malayn. marka case numberkaaga waxaa qortaa hataa zeroyinka waa ku daraysaa. complete case numberkaaga dhammaystiran waa ku qoraysaa meeshaan. then waxaa kuu soo hore date of birth, xilliga dhalatay, taariikhda dhalatay, date of birth. kasoo qaad Soomaali xilliga wadata waa la wada aqaan ay dhalatay koodi January 2000 tusaalahan waa. then meeshana waxaa leedahay dear sir madam. then marka sidaas leed xogta muhiimada hadalkaaga guud inta ka lehed ku qoraysaa. marka
halahani kale horta waa iska yimid meeshani halahani waxa rabtid hada in lagu furo formkaaga DS2060 mise wax kale ka cusinays halahan waa inaad horta dirtid halahan plus this email kani laakiin hadow wax kale hada u baahantahay subject iyo ciwaanka waa ka bedelaysaa maadaama aan in la ifro u baahanahay form waxa la unlock request way then meeshan boarding aan waxa ku qoraya waxa u baahanay xog ahay then waxaan ku bilaabayaa please unlock my DS260 form as I would like to make some revision enough halahana ku filan yani waxa wax dheer iyo hadallo badan iyo dhanna sameeyay halahana hada u dirtid waxa hore kaaga soo fureen formkaaga adigoona yani wax problem aadam ka marin marka waxa waaye muhiimad guudna waxa waaye inay ka hadishid waxa u baahantahay bas hadal kale dheer gal waxa sa qalday inta waxaan ka sameeyay waxa sana adigoona in waxa u sheegta formkaas u baahanay in la ifro enough waxa waaye waa ku fureen marka waxa waaye email kana isticmaalaysa oo u dir doontaa emailkaas plus subject ciwaanka oo emailkaaga plus magacaagi case numberkaaga date of birth then wax guud uu meeshan ku saabsanay please unlock my DS260 form as I would like to make some revisions so halas why then lastiga thank you that is it what damn then send ya leedahay waa halas marka saarjana wax badan waa ka faantay muhiimada guud qar badan ku rajayna video halkan ku keenayna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.